nabadii warsan meel kastaad iga daawanaysaan. allaha u naxariista qof kasta oo dhinta oo bulshadeena door u ahaa. maalinkaas ayaan ilownaa Soomaaliya. allaha u naxariista, inna lillahi wa inna ilaihi raajicuun. wuxuu ku jiray waqtigii la dilay caawinta iyo garab istaaga dadka masaakiinta iyo agoonta. wuxuu ku baxay gacan cadow. waxaa la oran jiray Cusmaan Salaad Daahir oo ku magac dheeraa Atuuraha Badda Liido, xeebta Liido iyo baraha bulshada iyo gebi ahaan Muqdisho ayuu caan ka ahaa. ilaahay waxaan uga baryayaa janooyinkiisa midda ugu wanaagsan inuu ku arsaaqo. Soomaaliya waxaan nahay kuwii la laaya. allaha u naxariista uun lagu ilaaba. bal miyaanan lahayn ciidan haddii aynan ka hortag sameynin ka dabatag sameeya falalka noocaan oo kale nagu soo badanaya dalkeena ka sameeya. wuxuu ahaa muwaadin dadkiisa iyo dalkiisa jeclaa. allaha u naxariista wuxuu ahaa taliyaheena, marna atooraheena, marna maskiin caawiyaheena. qof walba oo dadkeena iyo dalkeenaba qiimo ugu fadhiya maalin cad ayaa hortiina lagu dilaa, laguna qalanaya anagoo arkayna. haddana kooxihii dhibkaa dhan geysanayo way baxsadeen ayaan dhahnaa. allaha u naxariisto, allaha u naxariisto. wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo bulshada ku weyn. habeen jimco iyo dhammaadkii Ramadaan ayaa lagu dilay Hodan Tareex ee magaalada Muqdisho. jannadii Firdawsi allah ugu deeqo. Atuuraha Badda marxuumka wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo si weyn caasimadda Muqdisho looga yaqaan. wuxuu ahaa qof qalbi wanaagsan. Atuuraha Badda allah u naxariista. waxaa warbaahinta ay tabinayaan in goobta uu dilka ka dhacay inay soo gaareen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwaas oo shaaciyay in kooxihii falka geystay ee gebi ahaanba isaga baxsadeen goobta ay dhacdo ka dhacday. waa nolosha Soomaaliya, gaar ahaan reer Muqdisho, in dilka uu caadi ka noqda fal aan waxna laga qaban kusoo biyo shubta mar walba.